هات أصحابي وأنا سلامي وحوم أوجدين وحول بوني رشيغن واسكي آمنيسان فيديو أركتين وحاني لده هاي كبر صاحبة دي إيقا دوبتي إن هبينك أروسكي هبينك دنبي آل إيقا سو ديقا أوكي أيضا هدي بنت هاي أو فيديو غاس إن أروسكي دا لغا حما أو أني أنك دوبي أو أن بينك شيغاي أنيقا عدك اللي إيقا دوبي يا horta haddii ayada dhilo tahaan ana dhilaahay haddii wanaagsan tahana waan wanaagsanahay haddii balwad leedahana waan leeyahay sababta saaxiibka wuxuu yahay waa tahay dad saaxiibe ah oo hal meel ku wada nool oo walaale ah ya waan isku mid ma fahanto wixii ku wada saaxiibena meesha uu yaalaa haddii adiga balwad leedahay aniga waan leeyahay haddii aan lahayn ani malihi aniga codka anoo dad asxaab aan alaab u diriyay oo gabar walaasha ay u soo dalbatay oo ay iga duubtay ee meel walba i wareejinay muxuu ahaa marka dhaysid arooskayga habeenka ka dambeeyay kulay arooskayga la ka xumaa arooskaaga ka xumaana arooskaaga naagta kula qaban qaybinaysa ani aha dadku waxay is ogeen aka dhaadhicin waliga intahante ya dadka kala sheegaya oo waagaasna ku soo raacay haddana ku soo raacay waxa la niman shantaada ka cilin sharci kaama celiyo intahante hadda aniga xumaan ku geysan mar hore ka soo hadal lahayd intahante waa qalad baa iga gashay qalad baan ka galay raali gelin baa dalbatay waan heshiinay waxa warka soo laabanay dambana waa wax dan kale la leeyahay intahante يا أنا جا مع سراشي ده مركب محل دوجر عضوك يجدوا ويسي حمان تكون مثلا قف ولا الكائن وعيش كيس عنترت مرنوا دبلوج مجدو لكن دي بدأت مش الدمر وياه ولا ما كل حشان أير دمركم ما كل حشانان هذا أدي جواناج إيه ولا التنمى دي إيه فمن مدي إيه أنت وناجا أنا صار أحمر أجرم ويسي oo ay jeefeysay oo ninkaaga walaalkay oo adiga xushmad aan ku haay aan ku bartay oo gurigaygaas markuu imaado adiga dartaa ku imaan jiro adiga ku shukaansan jiro adiga kula joogay aniga qofka tagtaba aan ku dhaday ninkaygii rabtay arooskaygii ka xumaa maxaa arooskaaga xumaana wala isku dhacay si familiar ah iyadoo arooskaaga la gaarin oo gurigaaga aan kula hagaajinay gurigayga aad joogtaa si familiar isku dhacay arooskaaga waa iga tagtay arooskii la gaarin arooskaaga iimaad digan maxaa ka soo daanay aan aroosan iiga yeeranin okay waaba gashaba aroos maxaad inta dad iigu soo dalbatay codadkayga u duubanaysa oo ka galay adiga marka qof walaalka codadkiisa raadis oo codad aad ka dubto oo meelaha soo dhigtid adiga ma lagu siyaarina wallahi billahi dad waxaan wixiina ogeen ba markaas iska dhax gashaan oo baan ila ka raacayaan aniga waxaan sheegay runii been waxa ma ku ogidin ayada waxa sheegay runii been waxa ma ogidin ya sasa sagaashanka wixii loo soo sheegay u sii wareejinaysan wallahi oo billahi oo talaa naagta afaarihi ka dhamaan way samaan in la isku dhamaanayo ilaahay balankiis rasmarees hadalkeeda say usoo hadashay haddaba qofkan ay ishaystaan waa saadeysimanka oo walaalaha inaan dhexdooda dab laga shidin in la qaboojiyo marka insha allah arinta waxaan rajeynaynaa inay maaragtay maslaxo ku dhamaato waa runteed rasmi dumar markay isdagaalaan wax iskuma reebtaan tan kaleeto waxaa waaye saaxiibtinimo dumarteeda maxaa ka dambeeyo qandha baahashi weyn ma fahanteen marka saaxiib dumar dhan ma jiro sanadkan hadda lagu jiro dadkii hore haa saaxiibtinimo jiri jirta lilaahi laakiin hadda wax saaxiibtinimo la dhaho oo jirto ma jirto waa hee aan kugu danaysto kaliya wax saaxiibtinimo la dhaho ma jirto qof walba waxaa waa qofka is afahantiin waa kaas qofka is afahminane kasii soco tan kaleeto saaxiibtinimada waxaa loo baahan xad inay lahaato ma ahan inaa maaragtay la isku shushubto wax walba oo maaragtay afaarahaaga qofka u sheegtid aa isku balaqdid waxaan gabarba kala talinayaa gabar saaxiib hadaa yeelato inaa is aruurisid markaa u tegaysid xijaabkaaga ha dhigin hadallada aad leedahay kuu kontaroonaadaan qof bili-aadana ha aaminin adduunka aaminaad waa dhammaatay dadkii maaragta oo role modelka ahaay oo baraha bulshada ku jiray oo caanka ahaay hadiiba saan ay maaragtay saaxiibtinimadooda ku dambeysay maxaa ka filanaya dadka kaleetan saaxiibtinimo oo dumarteeda horaa loo sheegay waxaa ka dambeyso balaaya bahashi weyneeda ka dambeyso ma fahanteen marka waxaa waaye gabdho saaxiibtinimo oo gabar aa saaxiib la tahay dee lama huraayo laakiin waxaa loo baahan yahay in aad xad yeelato oo baalkii shay is aruurisid adigana weligaa daacad ahaa maalinta adi daacad aad tahay qof oo wax kaa tari kara ma lahan waxaa la dhahaa daacadnimo iyo laqdaba meel ma isla gasho adiga daacad iska ahaa qof ha dulmin qofka ku dulmiyana ilaahi subxaana watacaala ku daay waxaan hadda leeyahay insha allah dhexdooda ilaahay maslaxa qeyr qabta ha dhigo gabdhahan waxaan u rajeynaa insha allah inay maaragta dhexdooda nabad ee dhigmin dadka isku dirdiraayan ilaahay maaragta subxaana watacaala ka baqaano
waa gabdho walaalaa dadkan waa isqabtaan waxaa la yiri carab ilka isku dhawaan isqabtaan marka maadaama ay isqabteen ma ahan inaad dabka la sii huriyo waxaa fiican inaa ma aragtay arinta meeshaas lagu damiyo sheekadana hadda waxay kusoo cusboonaat waxay wax dhan oo ka dambeeya fidnadan waa ayaan tafshaan waxaan dhan ka dambeeya oo codkii ay Shaadiye Sharaf rabtay inay ku xumeyso darteed baa muuqaalkaas qof soo qaadatay oo keentay dabka meeshaas baa hadda lagu huriyay marka naagtaas oo la leeyahay ayaan tafshaan ummadda laga qabto ummaddiiba isku diroosaa dabbay hurinoosaa balaayo bay wadaa ilaahay sharteeda nala wareejiyo walaalay khayr badan idin rajeena inta muuqaal kale ku kulmeeno waxa idinkaga tagaa assalaamu calaykum muuqaalka oo midig amba bidix soo kori doonan insha Allah ii daawo ina la garay aada u mahadsantahay